بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم anigoo yahay magacaygu maxamuud maxamed axmed dhigana maadada ama kooraska dhaqaalaha kana dhiga jaamacadaha dalka ku yaala waxaan doonayay inaan ardayda fahansiyo ama introduction u sameeyo arday kasta oo raba inuu dhaqaalaha qaato inuu bal wuxuu dhaqaalu yahay inuu fahansiino haddaan wax warbixin kooban horta isku dayo marka ugu horeysa hordhaca kooban ay ka bixinayna ama tafaasiisha kooban ay ka bixinayna dhaqaalaha waxa weeye maadada dhaqaaluhu waa maadooyinka ama koorsooyinka la dhigta dunida kuwa ugu faca weyn leh wuxuuna soo bilaabmay qarniyo hore ama muddo dheer ilaa ilbaxnimooyinkii hore ayuu soo bilaabmay maadada dhaqaaluhu waa maado fac weyn leh waa maadooyinka had iyo jeer scholars ugu badan dunida ka hadlaan maadada dhaqaale maxay tahay markaan isweydiino ama maxay ka hadashaa marka ugu horeysa haddaan si yaro kooban u dhigno gebigayguba maadada dhaqaaluhu waxay ka hadashaa ama ay ka sheekaysaa bini'aadanka ilaahay wuxuu siiyey resources khayraad buu siiyey khayraadka yar ee ilaahay siiyey sidii iskugu filaysan lahaayeen ama ay u nidaamsan lahaayeen ay guud ahaan marka hore dhaqaalu ka hadlaa dhaqaalu marka resource-ka aynu ka hadlaynaa wuxuu noqon karaa dadka ilaahay ku siiyey war resources uu ka hadlaa bini'aadankiisii loo horumarin lahaa waxa kaloo ka hadlaa waqtiga iyo sidii loo ilaashan lahaa waxa kaloo ka hadlaa wuxuu ilaahay wadankaaga u deeqay iyo si aad u horumarin lahayd oo ay ka mid yihiin hadduu ilaahay dhulka ka siiyey macdan hadduu dhul beerista ay noqoto hadday wax soo saarkii noqoto oo waxaasoo dhan dhammaantood waxay noqonayaan maxay waa waxay maadadan ay ka hadasho waana maadooyinka ugu baahida badan leh inta ugu badan ee laga hadlo oo markaynu hordhac yaro kooban ka hadalno si guud haddayna xataa si kooban u sii hadalno economigu waxyaabo awoodda saaro ama aad uga hadlo waxaa ka mid ah productionka wax soo saarka consumption of goods and services oo kale waxaa kaloo ka mid ah sidii uu wadanku u isticmaali lahaa resourceska ilaahay uu siiyey ayaa iyaduna ka mid ah waxa kale oo ka mid ah maxaan ku dhahdaa inuu dhaqaalaha ama laga hadlo had iyo jeer inuu la dagaalamo dhaqaaluhu waxyaabaha baahsan oo ay ka mid tahay unemployment-ka maxaan ku dhahdaa camal la'aanta maxaan ku dhahdaa waxyaabaha noocaas oo kale inflation-ka sixir bararka control-ka lacagta all things-kaas marka si guud uga hadlan dhaqaaluhu ka hadlaa qodobka labaad haddaan u gurdo heerka baahiyeed ee barnaamijkan loo baahay ama dhaqaalaha loo baahay waa mid aad u ballaaran dalka waxaa jira dadka ka bartay dhaqaalaha ama wax ka yaqaana way kooban yihiin maadaama ay kooban yihiin waxa loo baahayay dad badan oo maadada dhaqaalaha wax ka yaqaana baahidiisa markaa aad bay u ballaaran tahay waxa weeyaan halka uu dalku ka hurda ama dalkeenu ama aad uga liidanaana ama wadamada dib u dhacay uga litaana waa dhaqaale la'aanta dhaqaalahuna waxa weeyaan baahidiisu wax kala maaha waxa weeyaan maanta waxa dunidu ku dagaalamaysaaba waa maxay waa dhaqaale marka baahida barnaamijka loo qabo baahi aad u ballaaran dadka ilaa imika dalkeena ay wax ka bartayna way kooban yihiin cidda dhigan karta haddaan ka hadlo barnaamijka ama dhaqaalaha ka hadli kara baran kara waxa weeyaan si yaro kooban haddaan iyadana u sheegno waxa ka mid ah qof kasta oo yaqaana social science-ka ama artist-ka waxa loo yaqaano bartay uu baran karaa waxa kale oo qofka baran kara waxa weeyaan qof ka dhisan maadada maths-ka ama xisaabta ayaa baran kara waxa kale oo baran kara qofka maxaan ku raay luqadiisa ama ingiliishkiisuna aad u badan yahay aad ugu fiican yahay isagana uu baran kara waxa kale oo baran kara qofka historyga ama maxaan ku raadayay geography-ka ba yaqaana because of maadadani waxa aad ula xidhiidha qofku waa inuu knows u yaqaan deep u yaqaan maxaan ku raadayay historyga ama taariikhda waayo waxa weeyaan wuxuu ku xidhan yahay gebigiisa waa dhacdooyinka dunida ka soo dhacay siday uga soo dabaasheen waxaasoo isagana uu kubnay marka si kooban haddaan u sheego qof kasta oo artist-ka ku fiican uu baran karaa isla markaana waliba maadada xisaabtan aad u yaqaana waayo ujeedooyinka laga leeyahay ama barnaamijku wax kala ma aha ujeedooyinka laga leeyahay waa maxay waa sidii kor loogu qaadi lahaa horumarinta dhaqaalaha ama wadanka kobcintiisa ayay ka hadashay gebigiisa hadday noqoto ganacsi dunida la yeelanayo hadday noqoto mid gudihiisa dhammaan waxaas ka hadla fursadaha shaqo ee u bannaan had iyo jeer maxaan ku raahday qofka baranaya waxa weyn haddaynu aad isku yar dul taagno waxa ka mid ah
fursadiisa shaqo waa aad iyo aad horta u ballaaran waxa kamid ah qofku inuu business abuuran karo isagu iskiisa inuu ganacsi gali karo oo ganacsigu isagu kamid waa qayb kamid ah economiga barashadiisa marka inuu qofkii aad u barto sida ganacsiga looga shaqeysto maxaan ku raado waa kamid waxa kale oo kamid ah businesskaas oo kale inuu noqon karo qofku uu bank teller noqon karo had iyo jeer uu ka shaqeyn karo bangiyada waxa kale oo kamid ah inuu noqon karo budget analysis uu had iyo jeer qof la fagura budgetka iyo wadanka waxa soo galiyo waxa ka baxay waxa soo dhaliyo waxa haysto ka shaqeeya wuxuu noqon karaa market analysis iyo qof suuqa had iyo jeer ka hadli kara waxa dhibaatada haysata si looga bixi karo waa qof ka hadli kara wuxuu kaloo noqon kartaa shaqadiisu inuu noqdo insurance agencies iyo systemka u shaqeeyana dhaqaalaha iyo waxa ku soo kordhiyaan inuu gali karo waxa kale oo kamid ah qofku inuu economist u noqon karo dawladii ama advisor u noqon karo madaxweynihii waxaan ognahay dunida inta ugu badan ee madaxweynayaasha Mareykanka tusaale kale soo qaadana Ingiriis waxay barteen waa maadada dhaqaalaha iyo barteen inta ugu badan marka waa qofku wuxuu noqon karaa politician buu noqon karaa isagoo oo arrimihii dhaqaalaha u noqon karaa wuxuu noqon karaa qof researcher oo baahida kulbata ee dalka ku shaqeyn kara oo baari kara baahiyaha nololeed ee wadanka yaala waxa kale oo noqon kara qofku maxaan ku raadayay had iyo jeer qof maxaan ku raadayay la fagura arrimaha dhibaato ee haysta dunida ama dhaqaalaha ama maxaan ku raadayay waxa soo dhan ka shaqeyn kara ayuu noqon kara waxa kale oo noqon kara qofku inuu journalismka maxaan ku raadayay uu shaqeeyo maadada economiga oo si la xidhiidha saxaafadda iyo economiga soo dhaxeeya qofku wuxuu noqon karaa business writer buu noqon karaa inuu wax ka qoro arrimaha ganacsiga inuu wax ka qoro maxaan ku raadayay ama editor uu ka noqdo had iyo jeer arrimihii ganacsiga iyo wixii wuxuu noqon karaa inuu ka hadlo economic affairs specialist inuu noqdo wax laga weydiin karo ama isagu laftarkiisa uu ka hadli karo oo uu ka shaqeysan karo had iyo jeer way magaasinada dunida ugu waaweyn wax laga yaabaa inuu shaqeeyo dhaqaalaha ka faallooda dunida uu wax u qoro article yar oo kaliya tuu qorto arrimaha wadankaaga ka hadlaysid wax laga yaabaa inaad ku shaqo tagtidba taasina waa arrimaha shaqo tagta qofka ama fursadaha shaqo haysto waxa kale oo ugu ballaaran ka noqon kara had iyo jeer baahida ugu weyn ee taala waxa weeyaan qofku ama wadankeena taala waa arrimaha dhaqaalaha halka ugu weyn ee ka jirtaan wax weeyaan tusaale kale siyaasadaha dawladdu isticmaalaan waxa la yiraahdaa fiscal policy iyo monetary policy waa bangiyada iyo sida shaqeeyaan iyo sida lacagta loo sargooyo iyo sida lacagta sicir bararka iyo inflation-ka loola dagaalamo qofku wuxuu noqon karaa qof takhasus caynkaas qaata dabeetana ka shaqeeya waxa soo kala ay noqon karaa haddaan taag halka kaga gudbo waxa kale oo soo gali kara takhasusaadka uu yeelan karo qofka barnaamijkan dhigta maadadani waxay geli kartaa fiilo badan inuu ka qaadan karo takhasusaad salaam kala dan soo qaadano wuxuu noqon karaa qof inuu takhasuso maadada la yiraahdo econometrics-ka inuu economic inuu ku takhasuso xisaabaadka iyo sida loo forecasting gareeyo ama wax loo saadaaliyo ama sida wax loo qorsheeyo ama sida wadanka dhaqaalihiisa loo horumarinayo waxa soo dhan inay maadada ka waranta inuu qaato waxa kale oo laga yaabaa inuu qofkaasi uu qaato haduu takhasusaadkiisa uu yeelan karo maadada la yiraahdo economic policy and planning qorsheynta iyo siyaasadda dhaqaalaha inaad takhassus gaar ku qaadatid waxa laga yaabaa in qofku sii qaato HRM geli karo human resource management inuu takhassus qaadan karo iyo fiilal kale oo fara badan buu qaadan karaa waxa agriculture ka mid ah agriculture economics inuu ku takhassus ku qaadan karaa suuragal qofkani uu ku takhassus cilmiga horumarinta beeraha iyo waxa soo qofkii takhassus iyo dhaqaalihiisa uu qaato saadaradeed inoo soo koobayna ardayga waxaynu kula talin lahayd maadadani waa maado ilaa xad wadankeenu tabayo una baahan dad badan inay soo baxaan wadanka isla markaana aynu ku horumari karno wadankeenu waxa weeyaan waa maado in barigii ugu horeysay tartanka dunida ka dhaxeeyay hubka iyo waxa lagu tartami jiray laakiin intii Cold War ku bilaabmay ama dagaalkii la qabooba siyaasadda la isku dilay ama waxa la isku dilay waa dhaqaalaha cilmiga dhaqaalahana wadamada kaga horeeya uu kaga horumarsan yahay saadaradeed hadeen rabno inaan wadanka horumarino cilmiga dhaqaalaha waa maado loo baahan yahay wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh